السلام عليكم noloshu way adag tahay marka aad u shaqaynaysid si adag laakiin aad ka dheefaysid wax yar ama aad waxba ka faa'iideynin way adag tahay marka aad bixinaysid dadaal adag laakiin abaalmarintaadu ay hooseyso waxa adag marka aad wax waliba u qabanaysid si saxan laakiin ay isu bedelayaan si qaldan laakiin maxaad qabanaysaa maxaa laga rabaa inaad ku wajahdo dhibaatooyinkaas ma isdhiibaysaa oo fashilka miyaad isu dhiibaysaa xaqaad u leedahay inaad isdhiibto waxaa macquul ah inaad kor u qaadid calanka isdhiibida laakiin arintaas ma ahan booskaada yacni isdhiibidu ma ahan meesha aad ku haboon tahay noloshu guulaysatay oo ay dadka ka sheekeynayaan siday u dagaalantay iyo siday u dhabar adeegtay weligeeda isma dhiibin weligeedana ma aqbalin fashilka adigana isdhiib laakiin waxaad ogaataa haddii aad isdhiibtid weligaa guul ma gaaraysid weligaana guul ma xaqiijinaysid laakiin haddii aad dagaalka joogtaysid oo aad mar labaad dagaalantid oo aad dhabar adeegtid insha Allah guul ayaad gaari maxaa adiga muhiim ku ah waa maxariyada aad leedahay oo aad ku taamaysid istaagariyadaada ka dhabay maxaad sugaysaa oo aad gacmaha isu saaratay waxaad haysataa kaliya hal fursad kaliya hal jaanis haddii uu hadafka kaa qaldamo ugu yaraan waxaad ku noolaanaysaa nolol farxad leh oo ah inaad mar una yeelatay hadaf iyo yool cad inta aan la gaarin dhamaadka noloshaada maanta waa maalintaad u istaagi lahayd inaad isbedel samayso noloshaada ka dhig mid muhiim ku ah adiga maalin ayay arintu soo afjarmaysaa inta u dhaxaysa taariikhda dhalashadaada iyo taariikhda geeridaada waa waxa ka harsan ama ka dhiman noloshaada ha noqon kaliya qof iska nool hadaf la'aan oo bilaa hadaf ah daqiiqad waliba ku noolow xamaasad iyo feejignaan aad u feejigan tahay fursadaha noloshaada soo maraya noloshu way adag tahay laakiin adiga ayaa ka adag noloshu waxay kugu joogteynaysaa dhibaato adigana la imo madax adeeg iyo dhabar adeeg oo dhibka nolosha u istaagin maxaad sameynaysaa marka ay nolosha ku jibiso oo ay dhulka kugu dhufato noloshu way ku jibinaysaa marar badan way ku jibinaysaa mar waliba adigana joogtay la dagaalanka nolosha marnaba ha ka laaban hana ka fariisan la dagaalanka nolosha noloshu way adag tahay laakiin adiga ayaa ka adag noloshu marar badan way dhib badan tahay musiibo xanuun qalbi jab guul daro laakiin adiga haddii aad adkaysato oo aad awood isu yeesho oo aad dagaalka sii wado dhibkuma sii jiraayo guul ayaad gaari waadna barwaaqoobaysaa insha Allah muuji loolanka aad nolosha kula jirtid kadib guul ayaad gaari waxaadna ogaanaysaa inaad tahay qof adag oo mudan inuu ku noolaado nolosha qurxoon oo isaga u qalanta mawduucan waxaa idin soo gudbiyey anigoo ah Cumar Maxamed halka aad iga daawanaysaana waa kanaalka Garwaaqsi wassalaamu calaykum